guud ahaan qaranka gobollada aas iyo buluuga codbixiyayaasha Maraykanka ay mar kale dooran yahay kadib markii uu fashilmay madaxweynaha iyo xanaaqa ka daashay qiimaha sare Something new like Trump. caawa madaxweynaha ku-xigeenka Kamala Harris isku daya inuu tago guriga cad ee White House kadib siyaasadda madaxdeeda madaxweynaha hadda ee Joe Biden. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you got something to say, say it to my face. Madaxweynaha hore ee Maraykanka Donald J. Trump isku daya inuu helo ee muddaha labaad. Look, I'm only here for one reason. They all said, don't come. I said, why? You can't win New Mexico. I said, look, your votes are rigged. We can win New Mexico. We can win New Mexico. iyo saaxiibadooda ordaya Tim Walz iyo J.D. Vance u sheegahay dadka Maraykanka waxay ugu tagaan yihiin. And my running mate took a bullet for this country. Well, it's true. These guys are just weird. He-Man Women Haters Club or something. kadib hore codkaha hore sidee iyo marka doonatan torshada la go'aansado. Are you better off now than you were 4 years ago? Tan waa Dalo Productions doorashada madaxweynaha ee Maraykanka. We will make America strong again. Tartanta guriga cad ee White House. We are not going back. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. dadka ayaa doonayahay iyo dunidu way dawaayaysaa doorashada ee bilaa maanta hadda. And we will make America great again. God bless you. maanta waa habeenkeeda doorashada ee Maraykanka. magacaygu waa Abdulkariim Akhtan. hadda Maraykanka ku waxay qaadayaan go'aan muhiim ee dooraan koowaad dumar ee madaxweynaha ama siinaya madaxweynihii hore Donald Trump muddaha labaad. codbixintii ugu horeysay ee bixitaan ayaa ku soo socda daqiiqado kaliya. 270 codka elektaroolka waxa uu baahan tahay inaad noqdo madaxweynaha 47 ee gobollada midoobe ee Maraykanka. doorashada waxaa lagu go'aamiyay 7 gobollada Louisiana, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan iyo Arizona iyo Nevada. sataliinta ee dayaca imaanahay ee CNN waxaan leeyahay sataliin Trump ugu guulaystay Indiana kaas oo ay 11 codka elektaroolka. Kentucky kaas oo ay 8 codka elektaroolka. South Carolina kaas oo ay 9 codka elektaroolka. Florida kaas oo ay 30 codka elektaroolka. West Virginia kaas oo ay 4 codka elektaroolka. Kamala Harris ugu guulaystay Vermont kaas oo ay 3 codka elektaroolka. Trump ayaa leh 66 codka elektaroolka. Harris ayaa leh 3 codka elektaroolka. kuwa ee Georgia iyo North Carolina. Trump oo ku guulaystay Ohio kaas oo ay 17 codka elektaroolka. Trump ayaa leh 81 codka elektaroolka. Harris weli ku jira 3 codka elektaroolka. Trump oo ku guulaystay Tennessee kaas oo ay 11 codka elektaroolka. Missouri kaas oo ay 10 codka elektaroolka. Alabama kaas oo ay 9 codka elektaroolka. Oklahoma kaas oo ay
toddoba codka elektroolka iyo Mississippi kaasoo ay 6 codka elektroolka. Harris oo ku guulaysatay Illinois kaasoo hay 19 codka elektroolka. Massachusetts kaasoo hay 11 codka elektroolka. Maryland kaasoo ay 10 codka elektroolka. Connecticut kaasoo ay 7 codka elektroolka. Rhode Island kaasoo hay 4 codka elektroolka. Delaware kaasoo hay 3 codka elektroolka. District of Columbia waa caasimada Mareykanka. Harris heli doona kaas 3 codka elektroolka. Iyo New Jersey kaasoo ay 14 codka elektroolka. Kudo uwa waa Pennsylvania, New Hampshire iyo Maine. Trump ayaa leh 97 codka elektroolka. Harris ayaa leh 74 codka elektroolka. Waxaan leeyahay sadaliin ah. Trump u ku guulaysatay Arkansas kaasoo ay 6 codka elektroolka. Kansas kaasoo ay 6 codka elektroolka. Louisiana kaasoo ay 8 codka elektroolka. Nebraska wuu helaa 4 ka mid ah 5 codka elektroolka. North Dakota oo leh 3 codka elektroolka iyo South Dakota oo ay 3 codka elektroolka. Iyo Wyoming kaasoo ay 3 codka elektroolka. Harris oo guulaysatay New York kaasoo ay 28 codka elektroolka. Iyo Colorado kaasoo ay 10 codka elektroolka. Kuwa waa gobolada Louisiana, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Arizona, New Mexico iyo Nebraska degmada labaad. Trump ayaa leh 130, Harris 112 codka elektroolka. Waxaan leeyahay sadaliin ah. Harris u ku guulaysatay Virginia kaasoo ay 13 codka elektroolka. Trump u guulaysatay Iowa kaasoo ay 6 codka elektroolka. Utah oo kaasoo ay 6 codka elektroolka. Montana kaasoo ay 4 codka elektroolka. Maine degmada labaad oo kaasoo ay 1 codka elektroolka. Iyo Idaho kaasoo ay 4 codka elektroolka. Harris oo guulaysatay Maine degmada koowaad oo kaasoo ay 1 codka elektroolka iyo Maine codka dhammaan oo ay 2 codka elektroolka. New Mexico oo kaasoo ay 5 codka elektroolka. Ugu weyn oo ah Odan, California doona noqon guulaysatay Harris oo kaasoo ay 54 codka elektroolka. Washington oo kaasoo ay 12 codka elektroolka. Oregon kaasoo ay 8 codka elektroolka. Trump ayaa leh 151. Harris ayaa leh 206. Harris ayaa go'aan leh 270 codka elektroolka loo baahan yahay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee gobolada midoobay ee Mareykanka. Waxaan leeyahay sadaliin cusub. Trump u guulaysatay Texas kaas oo ay 40 codka elektroolka. Harris oo ku guulaysatay Nebraska degmada labaad oo kaas oo ay 1 codka elektroolka. Hawaii kaas oo ay 4 codka elektroolka. Trump ayaa leh 191. Harris 211 codka elektroolka. Waxaan leeyahay sadaliin muhiim ah.
Trump u guulaysatay gobollada Louisiana ah ee North Carolina, kaas oo ay 16 codka elektroolka, iyo Georgia, kaas oo ay 16 codka elektroolka. Harris oo guulaysatay Minnesota, kaas oo ay 10 codka elektroolka, iyo New Hampshire oo ay 4 codka elektroolka. Trump ayaa go'aan ka qaatay 230 codka elektroolka. Harris ayaa leh 225 codka elektroolka. Waxaan leenahay sadaliin muhiim ah. Trump u guulaysatay muhiim gobollada Louisiana ah ee Pennsylvania, kaas oo ay 19 codka elektroolka, iyo Alaska oo ay 3 codka elektroolka. Trump ayaa leh 255 codka elektroolka. Harris wil leedahay 225 codka elektroolka. Ololaha ah ee Harris arka wado male ah ee madaxtinimada ee Mareykanka. Laakiin waxaan leeyahay sadaliin cusub. Trump u guulaysatay gobollada Louisiana ah ee Arizona, kaas oo ay 11 codka elektroolka, kaas siinaya Trump 260 codka elektroolka. Isagoo waxaa baahan yahay 4 codka elektroolka inuu qaadid 270 codka elektroolka inuu noqdo madaxweynaha 47 ee Mareykanka. Trump headquarters yidhi inuu sheegtaan in Trump ayaa socda ku isaga guriga ah ee Mar-a-Lago gudaha gobollada ee Florida. Waxaan leenahay sadaliin aad u muhiim ah inuu sheegi annaga yaa guulaysatay doorashadan. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald J. Trump doona noqda madaxweynaha 47 ah ee gobollada midoobay ee Mareykanka. Madaxweynaha la doortay cusub Donald J. Trump soo noqosho guriga aad ee White House sida madaxweynaha hore qofna ayaa tan sameeyay taariikhi ah ee Mareykanka. Ka kaliya ah haysta laga adkaaday 2 dumar. Taas micnaheedu madaxweynaha ku-xigeenka la doortay J.D. Vance doona noqdo madaxweynaha ku-xigeenka 50 ah ee gobollada midoobay ee Mareykanka. Anaa ka kala tan sameeyay sababto oo ah Trump doona guulaysato gobollada Louisiana ah ee Wisconsin, taas oo ay 10 codka elektroolka. Madaxweynaha la doortay Donald J. Trump isagoo khudbadda ka jeedinayay ah ee Mar-a-Lago ah ee Florida. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond.
And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. We also have won the popular vote. That was great. Very proud of that. Thank you. Thank you very much. Thank you. And, winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. waxaan leedahay sirliin cusub. madaxweynaha la doortay Donald J. Trump oo ku guuleysatay gobolada Louisiana ah ee Michigan kaasoo ay 15 codka electoralka kaas oo hay bixinahay madaxweynaha la doortay Trump ayaa leh 201 codka electoralka Harrisville leedahay 205 iyo 20 codka electoralka waxaan leedahay sirliin cusub. madaxweynaha la doortay Donald J. Trump wuxuu gobolada Louisiana ee Nevada kaas oo ay 6 codka electoralka madaxweynaha la doortay Donald J. Trump wuxuu helaa 301 codka electoralka
Harris 225 codka elektaroolka. Taas waa doorashada madaxweynaha ee gobolada midoobay ee Mareykanka. Macsalaam. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I saw that in the first term. When we became more and more successful, people started coming together. Success is going to bring us together, and we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you, and God bless America. Thank you very much. Thank you very much.